السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد Soomaaliyeed waan salaaman yihiin. waxaan si gaar ah u salaamayaa reer gobolka Shabeellada Hoose. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaa dadka reer Afgooye ee webiga aadka ugu fatahay inuu Ilaahay dhibkaas uga gargaaro. waxaase ma aragtay aan aad ula yaabanahay haddaan annaga reer Afgooye aan nahay. waxaan la yaabanahay magaaladan fatahaadka ma aysan dhici jirin. problem dabiici ah oo Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimid. dowladda federaalka xarunta dowladda federaalka magaalada Afgooye waxay u jirtaa 22 kilomitir ilaa 25 waxaan ka badnayn u jirtaa. waxaan moodaa mataqaanaa inaysan ka tirsanaynba maaragtay magaalooyinka Soomaaliyeed inaysan ka mid ahayn shacabka degan shacabka Soomaaliyeed inuusan ka mid ahayn aan moodaa sababtoo ah waxaan aragnaa dowladda sideeda banaanba dadka qaylada badan oo maanta dhan qaylinaayo waa wareeda ku hayo unbay maaragtay la dhiil garaysaa. laakiin waxaan ognahay xildhibaanada gobolka Shabeellada Hoose laga soo doorto inay meyd yihiin, qaasatan kuwa maaragtay degmada Afgooye laga soo doortay wax dhintay oo ba'ay waaye. waxa barakaca xaafadda cali Afgooye uu ka soo jeedo kulligeed xaafadda soo dhawaan laga wada baraka xaafadda isaga ay degan yihiin ehelkiisa qaraabadiisa reerihiisa ay degan yihiin baalgure oo dhan waa laga barakacay. damiir xumadiis isagana xamar uu fadhiyaa wax ma aragtay maanta damqashaha uu leeyahay habeeraatay ma jirto. warniyow caliyow dadkaan maaragtay video xumo adoo taagan aad soo duubto ummaddan kaagama qancayso waxaas wax qabadna ma aha. hadda adiga aad moodayso inay wax tahayne warniyow hortaaha dad hadal uu dilay ma fahamta hortaaha dad hadal uu dilay magaaladaas wax qabada u baahan tahay tag haddaad tagaysaniyow ama haddii kale sidii gabadhaas oo kale noqo oo dhowr 3 sano ay joogtaa hal maalin xitaa Afgooye iska dhaafee isbitaal Banaadir ma aysan soo gaarin adigana iyada la mid noqo ma fahamta. waxaan maaragtay fariintan uga faa'iidaysanaa fatahaadda Afgooye maamulka degmada wax ka tanbadiyo waxay kaligood wax ka qaban karaan haba yaraatee ma aha. waxay kaligood wax ka qaban karaan haba yaraatee ma aha. إبراهيم عرب محمد علي جميل وحبك ما قبل كلام لبضو ذاك اليه. دولة كوفر البيت وجوهر مدحونا عبد العزيز حسن محمد افتكرين وحنا نقفر لنا إن دت كاس جرم الدق على الجار وردت كان عندهم بحنا قاعد ما هيسو. دت كان دت حركة جرو أو رشيها لوجل ده معها. بيهان ليفل كروك كسر مرين. بيه تنقضوا كبديه. أول ما يلاقي صوت جبسنا جبس كده ورا سكرتجي وبيجي بيه مراي واللايفل كي لولك أي كسر مرين. لكن مقالة إنه أصنته أنت يرتاح هرتني كدر صنته وعبسيد وجوه إنه هذا تاجوان. لكن وحلو بهاي وحيت هاي سيدي مارت بيها الله مارين لهاي واحد دولة واحد خبر كرتا ما هنا واحد معمول دق واحد خبر كرو خبيراته معها. أنا كجاري ده هان نورث أمريكا هذا هاي budget ميزانية ودجنا بإذن الله تعالى مالمها وصوص ونقص فول هنا مارت وحنا نقول لك اللي يجارد أنت قاعد معمول كدقمة أفقوي إن شاء الله تعالى هدي الله إدناه. لكن وحنا مارت ما أنت حنوكن وها وحيتها واحد دوكمنتي مارت فيسبوك ياعي ولا أركي واحد سوشيال ميديا ياعي دوكمنتي ولا أركي نين كان مارت وحو عبد العزيز حسن محمد افتكر ماشي وفي سنة ما قرنا إنه نجح هذا مدن المدح من عدايم على لقوص وبندقي oo statementigi bangigiisa lagu keenay bangigiisa lagu keenay banaanka la soo dhigay. ninkaas waxa meesha ugu fiirsato waxa waa hadda kadib sumcadda maamulkaaga uu sii dhaawacaa. wasiirka arrimaha gudaha statement bangigiisa banaanka la soo dhigi doonaa biidnillah maalmaha soo socdo ma fahanteen. laakiin lacagtii loogu deposit gareeyo accountkiisa dahabshiil banaanka keenay. mudane madaxweyne maxaa kaloo naga rabtaa markaa naga waxa kaloo aan naga fadhiso oo aad naga rabto maxay tahay ودتك أو كفير سنس بإذن الله تعالى هذا تنجح مستر نسخان وحاول ناقد رامبو هذا لأن لبعض المعرض معمول كده الجوجو الحاجات دولة دوسي يقدمها تجمع الحمد لله ما لا إسكاس على منافقة دي يسكتر كي سنوي وقاعدين نقشة دي سكت أولها محيد محمد علي جميل ماشي إنه كبه حق إبراهيم إيه يسكت عن محمد علي جميل ماشي وكبه حق ما فهمتني إسكت قوة كان صدق عمر فريق كانوا وقاعدين waxaas adeer markaa laga tagay aqligaas aqliga tuulooyinka waa ordniyo tuulooyinka la taas Afgooye kama shaqeyso ma fahanti dadkaas siyaasad badan meeshan joogo ma fahanti naqshada anaga halkan ka dejin adeer hal ah oo la laabo waxaas
marka dowladda federaalka ah iyo dowladda koonfur galbeed waxaan ugu baaqayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ugu degdegsiimaha badan ee uga gaaraan shacabkaas maaragtay guryahooda hadda aasmay hantidooda duugantay in maaragtay webigaas laga maaray dadkan gaajo ma hayso oo ay kugu celinaa cuntadii kama rabaan loor bariis iyo kiintaal sokoroo loo geeyo ma u baahno alxamdulilah reefgo ilaahay waa ka dhaqay taas ma fahanteen waxay u baahan yihiin waxay tahay biyaha sida loo maarayn lahaa afgooy magaalo oo sarraysa waaye dhulka way ka sarraysaa haddii biyihii afgooy uu maaragtay saas u halakeeyey maalmaha soo socdo ha laga fisho maaragtay degmooyinka kale ee gobolka oo haray dhulkaas dhulka daadooyda ah weliba oo hooseeyo ee webiga uu maaragtay sarreeyo way ka sii dari doontaa marka waxaan leenahay inta dhibaato ka weysa dhicin awdheegle qoryooley janaale controle sablaale fatahaado badanaa kasii dhici doona haddaan tan hadda laga gaarin haddaan hadda kan la maaraynin fatahaado badan aa kasii dhici doono dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa insha allahu tacaala inay si gurma degdega ay la gaarto dadkaas in maaragtay biyahaas la maareeyo in hay-adaha caalamiga loo adeeg maaragtay la kaashado biyahaas sida loo maarayn lahaa hawsheeda galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu